magaalooyin badan oo kamid ah Somaliland waxaa laga dareemay geerida dhalinyaradii doonta kula degtay badda Mediterranean-ka kuwaas oo qaar badan oo kamid ah ay ka tageen Somaliland. haddaba wariyaha VOA-da ee magaalada Hargeysa Barkhad Kaariye ayaa booqday guriga ehelada mid kamid ah dhalintii badda ku dhimatay. warbixintan ayuuna ka soo diray. walow ay jiraan dad dhaqaale ahaan ladani haddana qaar badan oo kamid ah dadka tahriiba waxay ka soo jeedaan qoysas danyar ah. Fihime Axmed Xasan waxa uu qoyskooda ku nool yahay gurigan. waqtigaan u tagay waxay u fadhiyeen tacsida wiilkii Fihime ka weynaa oo warka geeridiisu soo gaaray inuu ku dhintay doonidii dhawaan ku degtay badda u dhaxaysa Masar iyo Talyaaniga. Sakariya Axmed Xasan wuxuu ka mid ahaa dadkii doonidaasi ku dhintay ee markii hore ka tagay magaalada Hargeysa. Fihime waxay iga warantay sida wiilkoodu u baxay iyo halka uu maray. halkan wuxuu ka baxay bishii 5 2015 Masar ka tagay 7 bilood uu joogay bishii 4 2016 toddobadeedii ayna loo sheegay inuu doontan dhacday raacay. doonta waxa la saarnay inaan habroodagnahay iyo inama badan asxaabtiisii inan baa ka baxay hablahana inantaas ka baxdeen habroodagnahay iyadaana sheegtay iyadoo waxay tiri 40 qof baan laashka ku saarnay 40 qof ee ugu dambeeyay baan hayna laashkana lagu soo qaado 40 markii la soo qaaday way tiri doonta intii hore way sii saarnayd qofkii koobaad ee caga loo saaray wahay doonta dadna markii keligii loo saaray doonta cagaha ay doonti dhacday inantii kale ee hadhay inantii ka dambeysay way badbaaday dib loo soo celiyay. Sakariya waxa daadiisu ahayd 20 waana ilmihii 11aad ee qoyskaasi. Fihime waxa ay sheegtay walow lacagta uu ku gaaray Masar aanay ku ogeyn wiilkooda haddana markii dambe in lacagtii uu doonida ku raaci lahaa Hargeysa looga